السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض إذا لهانتين بميل كستو ضافة الدنيا aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo xalay toole maxaa dhacay. habeen muhiim ah ee Barcelona qaadatay halka habeen mugdi uu ku jiro Juventus ay ku hoyatay cibaarooyinkii xalay ciyaaraha kubadda cagta ka dhacay casharadii aqliyada saameynta ku reebay hadimadii Ajax ay ka baday kooxda Juventus hoggii ay ku hubsatay Real Madrid oo ay ka daba galbisay Ronaldo iyo Juventus عجب iyo la yaab daayirada kooxda Ajax Amsterdam ayaa wali loo maaran la yahay waxa ay mar kale ay indhaha u saabiyeen kooxda Juventus cajuusadii reer Talyaani ee baryahan qandaraaska ku haysatay koobka Talyaaniga iyo Serie A gobolankii ugu weynaa ee ka dhacay xalay toole waxa uu ahaa kadib markii ay kooxda Ajax oo marti ku ahayd garoonka Torino ay 2-1 kaga adkaatay kooxda Juventus kooxda boqolaalka milyan ku bixisay Ronaldo si uu ugu caawiyo in ay ku guuleysato horyaalka ugu faacay qaaradda Yurub una xiisaha badan ee Champions League ayaa ujeedkiisa ugu weyn waxa uu ahaa oo Ronaldo u yimid in uu ka caawiyo sidii ay ugu guuleysan lahaayeen koobka Champions League balse waxa beeniyay oo riyadaasi maalinta ah run u bedelay kooxda Ajax oo kaashanaysa kabtanka kooxdaasi Ajax Delay kadib markii uu ka dulkacay madax isla markaana shabaqa uu ku ruxay sidaasina waxa ay kooxda Ajax ugu gudubtay semi-finalka iyo afardhamaadka iyada oo sugi doonta Manchester City iyo Tottenham soo gudba kooxda Barcelona ayaa iyadu habeen muhiim ah qaadatay waxayna 3-0 ay kaga adkaatay kooxda kaca kufaysa ee Manchester United Messi ayaa isagu goolo la yaab leh ka dhaliyay inkastoo uu goolka koobaad uu ahaa mid mucjiso ah balse goolka labaad ayaa waxa uu isagu ku lahaa nasiib kadib maadaama uu goolhayaha kooxda Real Madrid ay aadka u raadinayso ee Dakhia ay si lama filaan ah kubadda uga hoos baxday gacmihiisa hoostiisa balse waxa ama kaag ahaa Coutinho oo meel fog ka toogtay goolka isla markaana aad mooday in uu diirad soo dhaweysa uu ku hayay in goolhayuhu uu taagan yahayba ama uu ka soo baxsan yahayba goolka waxaanu isla markiiba dabaaldegiisaasi dhagaha ka furaystay ama uu dhagaha ka xidhay orintii taageerayaasha Barcelona ay ku orinayeen waxa ayna gaadhsiisay in ay u sacabtomaan markii bedelka lagu sameynayay 3-0 ay kooxda Barcelona ku adkaatay العلس أهانا وحا أي نقونسا 4-0 أي مانشستر يونايتد لغا أتكادي برشلونة أي إسكا حاضرينسا 4 دمات كوبكا تشامبيون ليغا إيادو أو سوغيسا ليفربول إيا بورتو كسو بيحي دونا عاوا casharadii laga bartay ciyaaraha xalay Messi waxa uu soo afmeeray dhibaatadii ka haysatay gool dhalinta 8 dhamaadka Champions League halka uu Suarez uu wali aanu gool ku xariiqin ama aanu ka dhalin Leo Messi kabtanka kooxda Barcelona waxa uu ballan ka qaaday taageerayaasha reer Barcelona in uu ku soo celin doono Champions League oo ay ku guuleysan doonto sanadkan Barcelona tababaraha Manchester United ayaa waxa uu sheegay in uu Messi yahay mid aan waxba laga qaban karin hadii taakalo dagaalo iyo derbiyadaba la isiidha u dhiga ama ku joojiya waxaan kaloo ka baran karnaa ciyaarihii xalay guuldaradii kontonaad ayaa xalay toole u buuxsantay kooxda Manchester United taas oo ka soo gaadhay intii ay ciyaaraysay Champions League waxa kaliya ka horeeya kooxda Arsenal oo iyadu 53 jeer laga badiyay ciyaaro ka tirsan Champions League casharadii Juventus iyo Ajax laga bartayna waxa kamid ah Ronaldo tan iyo 2009 waa markii ugu horeysay ee uu ku hadhay wareegga 8 dhamaadka marnaba may dhicin in uu ka hadho 4 dhamaadka Champions League waana markii ugu horeysay daafaca kooxda Ajax Matthias de Ligt ayaa isagu waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu da'da yara ee u dhashay dalka Holland oo gool ka dhaliya 8 dhamaadka Champions League tan iyo 1996 oo uu ka dhaliyay Northern Water kooxda Panathinaikos Ajax ayaa ah kooxdii ugu horeysay ee ka baxsan 5 horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub ee gaadha semi-finalka Champions League tan iyo 2004 ilaa 2005 markaasi oo kooxda reer Holland ee PSV Eindhoven ay sidaasi samaysay ama ay u gudubtay ugu dambayna ma jira laacib xirfad sare leh oo u ciyaari kara kooxda Barcelona isla markaana la barbar dhigi karo ciyaaryahanadii soo maray kooxda Barcelona ee reer Holland kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Kluivert Seedorf iyo Overmars ha ayaan ku leeyahay waa Frank de Jong da'yarka xirfada badan mulkiyadiisana ay leedahay kooxda Barcelona